in miisaanka la iska ridaa maaha arrin fudud. Koox gaar ah oo kubadda cagta ah kana dhisan UK oo la yiraahdo ragga la dagaalamaya baruurta ama cayilka ayaa isku dayaya in tartan lagu raaxaysto ay dhigaan guushu kaliya ma ahayn dhibco lagu kala badinayo, waa inta kiilo aad iska rido ee aad markaasi baruurtaasi la dagaalantid. Yaasmiin Axmed ayaa faahfaahinaysa. habeen walba oo isniin ah magaalada Slough oo ku agtaalo London ayaa 6 koox oo kubadda cagta ah koob u tartama. inaad goolal badan dhaliso oo kaliya laguma guuleysto, waxaad sidoo kale ku guuleysan kartaa miisaanka ka dhaca toddobaadkaas. Elliot Bagley ayaa la yiraahdaa, waxaan iga dhacday 15 kiilo. magacaygu waa Oli Brad, waxaa iga dhacday 30 kiilo. waan shaqaynaya, shaqada ayaan aad ugu mashquulsanaa, marna kama fikiraynin nafsadeyda. waxaan filayaa marka aad sii weynaataba inaad mashquulayso shaqo iyo ciyaal, balse waxaa jirta habeenka isniinta ah oo igu habboon waa inaan isku dayaa. hadda waxaa jira 7 horyaal oo kale oo London ka socda, waxaa ka qayb qaata dad 400 gaaraya. waxay u baahan tahay dhanka adag ee ragga. waxaad helaysaa wehelka dad badan oo isku mid aad tihiin. ma aadaysid meel ay dumarka ku badan yihiin. waxaad dhexgalaysaa rag kale oo ay isku sabab aad halkan u joogtaan, waana in la iscaateeyo, la iskuna madadaaliyo kubadda cagta. bisha Janaayo horyaalo cusub oo kale ayaa furmaya. inkastoo ay jirtay mar ay shirkadaha cayil yaraynta ee Ingiriiska aysan isticmaali jirin ereyga cayilka, horyaalkan ayaa si cad u isticmaalaya ereyga. halkan waxba la isuguma qarin. haddii aad buuran tahay oo aad cayilan tahay ayuunbaad ku soo biiri kartaa kooxdan. waxaanay noqotay in dad badan ay runtii u noqoto wax wanaagsan oo ay yidhaahdaan dee waan buuran waa inaan wax ka qabto. iyadoo 4 qofba uu qof miisaankiisu sareeyo dalkan Ingiriiska, horyaalku wuxuu caddaynayaa in miisaan lumintu dhowr xal leedahay.